waxaa la rabaa inaad saacad qolada bareesha ku jirta aad nala socodsiisaan wax kastoo aad dareentaan. waa si wanaagsan ma ku afkarta gudoomiye saacad baan kula soo wadaagaynaa xilliga ay soo gabagabowdo oo hawlgalku soo gabagaboobo midnaydka 6 saac baynu kala warqaadanaynaa oo waxa ka horeeya hawl baa ku jira aad u mahadsantahay waa inoo xilliga taliyaha qaybta booliska taliyaha saldhigga bartamaha xogayaha booliska iyo saraakiisha kale ee booliska iyo bahda saxaafadaba iyo madaxa isgaarsiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa habeen kale oo horumarka aanu la gaaray oo ay ciidamada amnigu gaareen iyo wixii qabsoomay qayb kamid oo caawa aan halkan ku rakibnay waxa ay horteeda yaallo aad u jeedaan jiafyadii gacanta oo booliska oo la soo kordhiyay oo la ballaariyay waxa bilaabay gudiga amniga iyo horumarka gobolka Mudug oo qurbaha ka dhisan oo ay madaxda u tahay Safiyo Horeeye iyo tiimkeeda baa keenay sanadkii hore dabayaqadiisii haatanna jaaliyadda Nairobi ayaa si ballaarin iyo qaybaha kala hor leh iyo bayskii iyaguna ku soo daray oo aan aad ugu mahad celinayno ganacsatada dhaqaalaha bixisay iyo khaasatan odayaasha ka shaqeeya inay soo gaarto gobolka Mudug oo soo ururiyay oo alaabta soo gaday waqtiga galiyay oo Suldaan Aagaan iyo Maxamed Xasan Jibriil Geeswala iyo Abdisalaan Xamdulle iyo odayaashaas odayaal waligood bay soo reer Nairobi horumarkeeda iyo taakulaynta dadka dhiban iyo dawladda Puntland wixii ay uga baahatay iyo isku xirka Soomaalidaba waligood rag bay soo ahaa oo qiimo badan oo jaaliyadda Nairobi odayaasheeda ah ayaana soo gaarsiiyay in alaabtan qiimaha badan leh qof kasta oo gobolka Mudug ilaa iyo 60 kilomitir ayuu isgaarsiintan gaaraysaa xarun kasta oo ciidan isgaarsiintoodu waa iyo baysaska dawladda gobolka iyo degmooyinka iyo qaybta booliska iyo barasaabyada iyo hadii alla ku rooyahay madaxtooyada iyo kulli qalab qof waliba wixii dhaca ama riboodka meel laga siiyo qof waliba telefoonkiisa oo haysta aw laga bilaabo waxa halkaas ka baxaya dambigii dhaca ama waxyaalihii la arko oo qoonsi ah isgaarsiinteedii waxay noqotay faryasul waxla.com bay gaartay caawa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa muddada aanu shaqadan adag haynay dadkii garab istaagay oo dhan oo reer Mudug ahaa iyo dawladda Puntland dhamaanteed ka khaasatan anigoo ku hadlay afka gobolka oo dhan waan mas'uul uga ahay madaxda iyo saraakiisha ciidamada iyo degmooyinkaba mahad celintooda aan afkooda ku hadlay shacabba iyo odayaal iyo ismaba aad baan idinku mahad celinaynaa waxa aad natirteen waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan idin leenahay Ilaahay haydi sharfo hana idin karaameeyo waxaad u shaqayseen dalkiina iyo dadkiina khaasatan alaabtan hadda hortayada taalo caawa aanu bayska rakibno waxaan uga mahad celinaynaa jaaliyadda reer Nairobi odayaashooda iyo ganacsatadoodaba oo shaqadan quruxda badan la qabtay aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa shaqadii waxa aad soo dhiibteen iyo waxa aad ku soo kaalmayseen gobolka sidii ugu fiicnayd baa hadda u bilaabatay oo loo rakibay caaw laga bilaabo shaqadii waxa aad rabteen baa socda hadee hawl kamil daalo wali waa hogadii gobolku koomadii waa ka soo baxay recovery fiican buu qaatay wuxuu u diyaariyay hadda horumar amnigiisu waa boqol baa la oran karaa aad baan argagixisadii gobolkan halaysay oo inkaarta qabtay gobolkan waa laga sifeeyay waxyaalo yar oo raadadkay ka tageena iyo maaragtay dib u dhacyadii dalka gaaray oo isaguna raba in
la dhado oo dhaymo badan oo ama ummadda dhexdeeda dhibaato ay kaga tageen isu geysatay ama dib u dhac gobolka ay ku rideen oo xagga horumarka dhaymihiisiiba hadda socda waxa kale oo la rabaa ganacsatada u dhalatay gobolka inay ku soo laabtaan oo ganacsigooda ay ku aaminaan meel lagu aamini karo hadda joogaaye waa jiraan dad ka bilaabay ganacsato oo dadaan aad iyo aad wanaagsan oo hadda mudana ka shaqeynaya gobolka ganacsigooda ku waday oo aan ka bixin markii mushkiladu ka dhacday baa jira waxaan si gaar ah u xusiyaa ugu mahad celinayaa nin ka mid ah jaaliyada reer Saambiyo oo leeyahay Cabdi Abshir hotel aad u qiimo badan magaalada mar dhow furmaya ka dhisay iyo gabadhii dhisayso xaaskiisa ahayd oo khayr Allah siiye Nuura Saciid Xaraf aad baan ugu mahad celinaynaa runtii dadka xushida mudan buu u baahan yahay waqti adag buu ka bilaabay inuu milyaamaad lacag geliyo gobolka dadka dhan waxa la rabaa inay ku dhiiradaan horumarka gobolka waxa qayb ka noqonaya inaad ganacsiga geliso meesha dib u dhacdana daa'iman waxay leedahay horumar mar haday meesha dib u dhac ku dhaco fursadaha ka furma gobolkii hadda waxa weeye kor buu u soo kacay marka fursadihii ganacsigu waa ka furan yihiin marka yaan leeyahay kaga horumarin mar aan fursadu jirin oo dad rag ay ka faa'iideystay bari maxaan qabtaa ha oranine maanta nin kasto lacag haysta gaalka iyo wixii la gashay ama gobolka mudug la gasho faa'iido badan buu ka helayaa marka waxyaalaha loo baahan yahay ganacsatadu inay aaminto oo ay arkaan nabadda ka dhacday iyo la dagaalanka argagixisada lagala dagaalamay oo waliba la raba inay noqoto gaalkacyo meesha ugu nabad badan Soomaaliya inay noqoto la raba iyadoo ay sabab u tahay argagixisadii oo la weeqay iyo isfahamka labada maamul oo wada degan oo gaalkacyo labada dhinac ama gobolka mudug labadiisa dhinac degan ay isfahmeen dadkeedii oo adeegoydeen oo hadda shirkii book fair-ka labada bari book fair gaalkacyo oo labada bari socdo dadkii isugu yimid iyo wixii lagu xuseen adeegoydeen ma ahayn wax hore uga dhici jiray marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin mahad celinaynaa intii wax nala qabatay inta kalena waxa la rabaa inaad wixii wax la qabanaya gobolkana waa soo dhaweynaynaa wixii wax ka qabsanayna waa soo dhaweynaynaa